aad jeclaato ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay adigu aad ka baqdo ayaa makhluuquna adiga kaa haybaysanayaan hadba intaad ilaahay taacadiisa iyo diintiisa aad naftaada ku mashquulisid ayaa makhluuqa kalena baahidaada loo diro baahidaada ku daboolayaan man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi walaalkaaga muslimka markaad u gargaaraysid eed gargaarkiisa aad ku maqan tahayna adigana gargaarkaaga ilaahay baa kugu maqan ogow alfirs walaalkaaga muslimka ee islaamnimadu niga dhaxaysaad u gargaaraysaa ood ilaahay ajar kaga doonaysaa waad u khidmaysay waxbaad u qabatay waad u shafaacad qaaday ergaad u noqotay ergo yaa waad la socoto waad raacday meel baad u raacday muraadkiisii saad ula soo qomiso adigana baahidaada ilaahay baa kuu daboolaya ogow marka sirta noloshu waxa weeyaan ilaahay caza wajal xidhiidh fiican la yeelano qalbiga wuxuu ku raaxaystaa waa ilaahay dikrigiisa khalqigu waxa ilaahay kugu sakhiraya waa ilaahay taacadiisa waxa qalbigaada ku nuuraya waa ilaahay dikrigiisa waxa arsaaqada lagugu waasiya waa ilaahay taacadiisa waxa maaragtaanay nolosha caafimaadka aad ku heshaa waa ilaahay taacadiisa cibaada inaku maanta waxa u haysanaa dad badan u haystaan cibaadadani islaamnimadu iyo diintu inoogu yeedhayso hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday zaka tahay hadday diin laga shaqeeyo tahay hadday diin dadka la bara tahay hadday diin la barto tahay haddii xijaab iyo astur la qaato ay tahay waxaan u haysanaa cibaadadu inay aakhiro waxtarkeedu ka bilaamaayo may adduunyadana aad joogto noloshaada yare gaaban waxay ku hagaagaysaa waa ilaahay taacadiisa xidhiidh fiican la yeela allah bas إلهنا إنك أوباح جزاك الله خير شيخ الله أكبر إلهي إنك أوباح كن لي كما أريد أكون لك كما تريد كتاب طريق الهجرتين إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قصده وحكوشيغي نبي الله موسى عليه السلام markuu nabi shucayb ariga uu jireeyay dhul wuxuu ariga ku raacay maaragtaan yeeyay dhurwaagu ku badan yahay ariga marka la raacayna lama jeefsan karo geeliya looda marka la raacayo waa la jeefsan karaa laakiin arijuruhu ma jeefsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya Musa alayhi salaam uu daalay marka deedna geed buu hoos fadhiistay baa isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jeefsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe markaa nabi Muuse uu baraarugay ushiisiibu waaye ushii ila ulbu sita mogta markaas arigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nabi Muuse haysta alayhi salaam oo ariga neefka baal martaba u soo wicinayo ku soo celinaya markaas nabi Muuse yaabuu sidaa u eegay waa dhurwaagu ariga uga baqayba u soo ilaalinaya markaas la haatif dhawaaq buu maqlo lagu yiri kulli kama uriidu akunu laka kama turid ya Musa sidaan anigu aan doonaya hadaad ii yeesho sidaan adigu aad rabtana anaga ku yeelanaba Ilaahay ku yiri sida rabbi doonayo hadaan yeelo sidaan inaku doonana Ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshan maanta fahmi laanahay nolosha hadaad cibaadada ka dayayda macaankeega ma fahmi karaysid waad wareeri هذا وخي هذا هو ورسلنا ملك الموت كوي من اوغو لكن هذه حريرك الهي انا تكيسنو اون ايمانك اسلام نمدا صلاه عباده دينتينو اي نغا نقوتو ماركتان دقن او ايسن نغا نقون دغيسي كليا او دينتو دقن اي نغا نقوتو waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galana janno dadka adduunka ku nool baa waa afar qayboodba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo janno ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galaya kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galaya laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta janno galaya ka afraad adduunka intuu joogo janno ku jira maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galaya dadka adduunka ku nool waa afartaaba si kale hadaan u dhigo mid waxa weeyaan waa janno ku sug
mid waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaaladay khusaysaa labana muslimiintay khusaysaa labada gaaladan horta inii macnaynaya dhagaysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyey dhaqaala ilaahay siiyey hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu ku dhacayaa addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir say janna adduunyada ugu tahay kaafirka waa kaafirka hantilaha laanna jannadiisu waa maxay halkan adduunka intuu jooga wuxuu doonuu samayn waxba ka xaaraan maaha waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi waxa uu doonuu daawan meeshuu doonuu mari suu doonuu u fuuli suu doonuu u socon cidduu doonuu u tegi wax haba yaraatee soo joojinaya oo qabanaya haba yaraatee ma jiro shahwadiisa adduunka dusheedu ku gudanaya kaas marka jannadiisii halkan weeyaan isaga bimacnaa shahawaadkiisii adduunka dusheedu ku gudanaya weeyaan waxa uu doonuu samayn waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi dharkuu doonuu xidhan suu doonuu timaha u xiiran meeshuu doonuu tegi waxa uu doonuu fuuli siduu doonuu u hadli halkan weeyaan jannadiisii isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysaa darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuuna baa ilaahay yidhi gaalada ha cuneen baa ilaahay yidhi iska dhaaf ha iska cunaan oo ha iska tuntaan oo ha iska raaxaystaan oo hididiladuna ha dagto hididiladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonnaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baan la ilowsiinayaa laakiin waxaa ilahay yidhi gadaal dambaysa ogaan doonaan baa ilaahay yidhi أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن بقى نبي محمد لقولي هاي هذا ندونك دوشي هذا يرقوا راحين كواس كدبنا وحي الله يبا هاي وكوي مادو غيري دي ما كوي من الزقف أجلشي با كودينين لأنه محا كوي حقا تمتعي أدونك دوشي هذا كسو راحيستين هذا وحبا ومترين با إلهي وإلو بدونان كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بنك قيامة مركز السوء تاقان بل لو يدين لأورندونا أرلا دوشيدي إمسات كسور نقاتين مركابي أورندونا المالين أما مالين بركين أو تمتع عدوك كسور تمتعين كسور حاجتين مجروا marka gaalka sarwada haysta ee hantiilaha bimacnaa jannadiisii waa halkan jannada loo jeeda waa maxay shahawadiisa halkan uu ku gudanaya wuxuu doono dhan waxa nafsadiisu ay doonto oo dhan halkan uu marka ugu sameynaya markuu halkan ku dhameystana waxa ilaahay yidhi fasawfa yaclamuuna marka u dambaysa kaasi waa kaas gaalka labaad waa gaalkee waa gaalka faqiirka waa gaal laakiin gaalnimadiisa faqri baa u dheero darbi jiif weeyaan meelaha buu khamriga intuu cabuu darbiyada ku dhacaa adduunka dusheedii sidan uu ku yahay oo cadaab buu ku jiraa aakhire markuu tagana cadaabkii weynaa buu gali walciyaadu billaah xadiis waxaa jira faina ashqa alashqiyaa man ijtamaca calayhi faqru dunya wacadaabu alaakhira fii shucab aliimaan buu ku sheegay imaam bayhaqi raximahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro walciyaadu billaah labada kale muslimiintay khuseeyaan waa mid adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhiro tago insha allah jannuu gali ilahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsi buu iskaga jiraa qaflad buu ku jiraa diinta dhinac uu ka haystaa dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa waxa maanta adduunka dhiig daadanaya oo dhiigga islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeenna soomaaliya aan ka soo jeedno kulligeen soomaali baan iska wadanahe waa dad isku caqiide ah isku luqa ah isku madhab ah isku diina isku dal ah
وقوم كان يكون الودن كنا ودن كان يمسك قبيل بكونول يمسك ولد بكونول يا شيخ دوري أفرت الصومة واحد قبيل سكولين ما دركتين ما هي لماذا إنكم مسلمين وشهادين إن القبيلات سكوكو دمين وما الولبة كما قال سمر والبة من البلاد قال ما كدعي ويا سلينيا ريح الدين ريح غفاء سلينيا ما السبب وترك الدين ويان ما دام الدين تسدي إلا الدنيا نوقف سويني عذابك أدونك كجرنا وقادا عذابك أدونك كجرنا إن دد مسلمين وأشهادنا ديقود أيس حلال شدان أيس دعان وأيس بوبان وأيس كحد قدبان وأيس حزدان وأيس حنتان وأيس دميان وقفك كلا ديقي سوح على شدو محا كينايا وحا كينايا وحا ويان وقدبت دين الإسلام كان لقا قلا لقود رغم واي diintii la baran waayey la isku xukumi waayey laga shaqayni waayey lagu dhaqmi waayey la isku xidhiidhini waayey ilaahay jalla wa ala muxuu sameeyay marka qulubteeni baa ilaahay markaas ku dhiftay waynaka arkaya wadankan dhowr iyo 40 qowmiyadood baa inagula nool qolo la hadlaysa ma jirto nabad baa lagu wada nool yahay innakeena nabad baa ku wada nool nabad baa kula nool oo arsaaqad ku haysanaa oo amni ku haysanaa oo diinteeni si xorriyada aan ugu haysanaa wadankeeni aan ka soo jeednayna ayadoo dadkeenu 100% muslim isku afkaliya ay wada yihiinna cadaab ku socdo cadaabkaas waa qabiilku waa nooc min alcadaab weeyaan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu nabi wuri aniga dabada gaalnimo dib ha ugu noqonina bu rasuulku yiri badbarkiina kale oo qoorta ka jaro oo dhiigiina isxalaashataan haddaad aragto ummad islaam u nisba sheeganaysa oo ninba ninka kale dhiigiisa u xalaashaday xadiiska waxa uu nabigu sheegayaa islaamnimo ma aha waxaas gaalnimadii dib loogu noqday jaahiliyadii ogaada cadaabka marka muslimiinta diinta aan ku dhaqmin ay ku jiraan dagaalka qabiilka kamida qaxootiga kamida qaxa ayaa kamida ummadda 8 albaab jahannama loo furay ee dhulka gaalada u soo socota ayaa kamida waa cadaab nooc min alcadaab inuu muslimku yiraahdo maanta dhulka islaamka nabadi ma taalo oo tacliini ma taalo oo dhakhtar fiican male oo nabadgelyo ma taalo oo arsaaqad ma taalo aye arsaaqada ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri arsaaqada yurub bay taala amniga ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri nabadgelyada yurub bay taala caafimaadka ilaahay baa haya laakiin isagu wuxuu yiri caafimaadku wuxuu yaalaa yurub iyo mareykan buu yaalaa wixii ilaahay lahaa ayaad u nisbaysan Soomaha dad kale waa wuxuu ilaahay ka bada marka adiga dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa 80 ama 70 mujtamacii inaga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii si haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timid Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa bay miskiin nagula tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajid u badnaayeen laakiin maanta xagga kale beerta loo batay xagga beerta ma taqaanaan xagga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halka bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu ma ha raxmad marka muslimka diinta aan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa laakiin aakhiro markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaallaa in shaa cadabahu hadduu doonana ilaahay waa cadaabi hadduu doona ilaahay waa u naxariisan taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa laakiin ka afraad baan u socdaa ay dhageysta waa kee waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa waa kee waa muslim mu'mina oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya oo diinta ilaahay ka shaqaynaya oo diinta ilaahay ku dhaqmay oo ummadda baraya diinta oo diinta noloshiisa ay ka muuqato muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno maalintuu dhintana jannadii weynayd buu gali doonaa insha Allah dhahada yaa u diyaar janno ku sugan u helo insha Allah dhahada
janno janno ku sug ilaahay hayna siiyo. ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa laga sheegay isagoo 3 maalmood aan cunto cunin ayuu odhan jiray low yaclama almuluuku wa abnaa'uhum maa naxnu fiihi laja'laduuna bisuyuuf. waa nin 3 maalmood cunto aanan helin oo aanan cunin oo masaajid iska ictikaafsan, mar ummaddu cilmiga baraa, mar isagaa culummada wax ka barta, mar ilaahay buu baryaa, mar dadku ilaahay xaggiisa ugu yeedhaa. 3 maalmoodna waa qatan yahay. waxa uuna leeyahay dhegayso, boqorrada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro hadday ogaan lahaayeen seef bay igaga qaadan lahaayeen buuhi, ama jadal. macaanka aan dareemaya raaxada meesha laga raaxaysto maaha dhar fiican oo jirka loo xidho, aqal fiican oo la dhisto, gaadhi cadoo la wato, magaasaan weyn oo la furto. may raaxadu waxa weeyaan waa qalbiga qalbiganoo ilaahay jalla wacala ku tacalluqma ood garataa waxa adduunyada ka dhacayoo dhan waa qadar ilaahay. adigana wixii ilaahay kuu qadaray mooyaane wax kale kugu dhici maayaan. wixii ilaahay kuu qoray mooyaane wax kale heli maysid. waa inaad garataa ilaahay jalla wacala qof kastoo adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya, wax kale heli maayo. marka janno allah inooga dhiga adduunka, janno ku suga insha allah. dhexda bilaal alxabashi radia allahu canhu wa ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataa. markaasuu dhaha kala qaaday, naa maxaad leedahay? waa dumar iska qalbi jilicsan oo markaa waa iska barooratay. baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo, waxaad tidhaahdaa waa farxataa, maanta waa farxad iyo dhabuu yidhi. markaasay ku tiri maxaa ku farxa? waa adiga iga dhimanaya sakaraadkii baad. wuxuu idhi hadan nalqa alaxiba muxammadan wa saxbah. anigu baritoole qofkaan la kulmi ma taqaanaa muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii baan la kulmayaa buu ka yidhi. kuwa faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen. lanna noloshan adduunyada iyaku may dayicine waa ka faa'iidaysteen, kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen, kumay shahawaadkooga kumay raacine axkaamta ayay raaceen. adduunyada may camirine aakhiraday camirteen. aakhiradii markay hagaagsadeen noloshii adduunyaduna waa iska hagaagta. markaas innagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oon qurxinno, waan dhisnay, haddana dadkii maanta raaxo ma hayaan. qof kasta waa calacalaya maanta. fa ilaahay jalla wacala hanu soo noqonno, han toobadkeenno. khaasatan dhulkanna ilaahay baana keenay, anagu waabad ku dhaldhalateen baan u malayn intiina badane. ilaahay baa dhulkanna ina makansiyo ina dejiye, soo maaha inde amni baan ku haysannaa, arsaaqad baad ku haysataan, diin baad ku haysataan, dacwad baad ku haysataan, nabadgelyaad ku haysataan, soo maaha inde. haddaba asbaabta waxaasoo nicmada ay noogu daa'imaysa waa maxay? qur-aanka ilaahay ku sheegay aladiina in makkannaahum fi lard aqaamuu الصalaata waatuu الzakaa waamaruu bilmacruufi wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibat اlumuur baa ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala. kuwa dhulka aan makansiinin, dhulka aan dejinno, asbaabta dhulka ay ku makansadaan waxaa ka mid a salaaday ogaan baa ilaahay yidhi. haddii dal kale aad ka timiday oo nin walba waan ognahay, nin walba meel buu ka yimiday. gobolladan waxaa ka iman keniyadeenna ku yaalla soomaalidu ay leedahay, ama dalkii baa laga yaabaa in laga yimid oo loo shaqo yimid halkan. haddii ilaahay dhulkanina keenay oo dadka dhulkan joogana maaragtaane ay dhib inoo geysan oo nabad iyo barwaaqo aan kula noolnahay, waxaa la doonayaa xaq baa laynagu leeyahay. ilaahay ina abuuray xaqiisa han ilaalino oo innagu ka muslim ahaan qof bilaa salaadaya dadkeenna lagu arkin. qoys walba qof bilaa salaadayaan lagu arkin. aqaamuu salaata baa ilahay salaaday oogaan bimacnaa isaguna waa tukanayaa weeyaan, awqaaddeedii buu ilaalinayaa, aqoonteedii buu leeyahay. dadka kalena waa u yeedhaayo wuxuu yidhaahdaa salaadda ha tukanayna mariya. wa aatuu zakaata, zakadana way bixiyaan buu ilaahay yidhi. maalqabeennadeennan haddaad muslimiinta inagula nool magaaladana fuqarada, ducafada, masaakiinta ee mustaxiqiinta uwa zakada, haddii zakada la siin lahaa qof baahan oo miskiin oo faqiira laguma arkeen. laanna tiradiinu ma badno. muslim kastoo magaalada ku nool waxa uu noqon lahaa hani buu noqon lahaa, baahi bini aadan ka kaaftoomay buu noqon lahaa oo sharaf leh. wa amaruu bilmacruuf, dadkee wanaagga faraya, dadkee
dadkan aad la nooshihiin ra'sul macruuf ibn Abbas wuxuu yidhi waa tawxiidka dadka laa ilaaha illa allah baa loogu yeedhayaa dadka islaamnimada la gaadhsiinayaa dadka waxaa la gaadhsiinaya tawxiidka loogu yeedhayaa wixii wanaag ee sharcigu faray baa la farayaa waraasul munkarna waa maxay yanhawna canil munkar waa maxay munkarka dadka ka reebaysaan waxaa la yidhi raasul munkarna waa shirkiga waa gaalnimada kufriga iyo gaalnimadana ummadda waan uga digaynaa oo leedhahay ka daayo ka toobadkan ilaahay uga soo noqda hadbayntaad adigu ilaahay aad jeclaato ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadbayntaad ilaahay adigu aad ka baqdo ayaa makhluuquna adiga kaa haybaysanayaan hadbayntaad ilaahay taacadiisa iyo diintiisa aad naftaada ku mashquulisid ayaa makhluuqa kalena baahidaada loo diro